kulankan uu maamulka degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir la qaatay dhalinyarada ciyaartooyda degmada Xamar Weyne ayaa ujeedadiisu ahayd sidii dhalinyaradu ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada kaasi uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Xamar Weyne ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada ku nool degmada Xamar Weyne maamulka degmada odayaasha ku dhaqan degmada Xamar Weyne waxaana looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaataan horumarinta nabadda iyo ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin horumarka dhinaca isdhexgalka bulshada Axmed Cumar Shaxshaxlow oo kamid ah odayaasha beelaha Banaadiriga oo ka hadlay kulanka ayaa kula dardaarmay dhalinyaradu inay xoojiyaan xirfadda ciyaaraha ayna ka shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada marka wantaaj boolkaas ku dadaala kalsooni isii ciyaartooyda ninkii qaldo hataa yaa lagu qaylinin kanooniga ma kula dhalanin waa qaldi kartaa ninkii qaldo halo zacbina waa toosina leh laakiin hadii banooni ninkan qaldo hadii lagu qayliyo wax ma toosay banooniga ninkii qaldana waxa weeye halo zacbiyo banooniga waa toosay abwaan fanaan Shariif Maya Jeek ayaa ka warbixiyay muhiimadda ciyaaraha ay ka qaataan nabadda labada meesan dadkii dheelsiga labada midyaano number 3 and number 2 waxa waaye waxay dheelsinayeen ikana jooy markii oo baloonida gacantooda soo gasho inay tuuraan la raba ay u tuuraan ama number 7 ama number 11 magarad hadii laakiin waa haysana waa socona number 2 waa socona hadii sira waa asfaraha ka dhigay booskiis gudoomiyaha degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir Cumar Shariif Maya Jeek ayaa u soo jeediyay dhalinyarada degmada Xamar Weyne inay ka shaqeeyaan horumarka degmadooda niyadeeda dhismaysa awal ciyaaraha isboortiga markii soo dhaweeyay ninka waxaan dhigi jiray igada waxaan ay ugu mashquulinay sababtoo ah Xamar Weyne waxay aan jirtay meesha fanka ugu haysato meesha isboortiga ugu haysato laakiin waxay hadda noqotay 20 sano meesha ugu liidata Xamar Weyne noqotay maxaa keenay waxa keenay isku xirkaan ma jiran hadda laakiin isku xir imaaday oo waxaan dareemaa isboortiga isbedel uu ku imaaday waxaana ma haddaas iyo bogaadintaas kala gudoomiyaha isboortiga cusub ee hadda magacaaban inuu maanta dadkan oo kala duduwan tiimka Xamar Weyne inuu soo dhiso ma haddeeda asaga iyo macallimiintiisa iska leh guddiga macallimiinta oo dhan oo aan qofna ka maqleen laakiin hal mid aan rabnaa waxa sharaf xumo noqonaysa horta dhibban waa la iska bayaa banooniga waxa waaye waxaan nasiib waaye waxa loo baahan yahay inaan noqono dadka ugu aqlaaqda fiican hadii laga badiyo xataa Xamar Weyne inay noqoto aqlaaq inaanan dhagax gamin inaan dagaalamin inaan dad feer aan waxba u dhimin la dhaho wallahi reer Xamar Weyne waxa mudnaan lagu siinaa aqlaaqdana wax weyn waaye Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho